halkani waa garoonka Alamsey Stadium waxaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah bulshada magaalada Burco kuwaasi oo halkani ku tukaday salaad Roobdoona maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco Culmiyawdiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa halkani isugu yimid si ay u tukadaan salaad Roobdoona taasi oo Ilaahay kaga baryayeen inuu u shubo raxmaadka Eebe culimadii kala duwaneed ee halkaasi ka hadashay barasaabka gobolka Togdheer iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco ayaa halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jiray duco waano iyo dardaaran iyo waliba alla barye ilaahay waxaanu ka baryaynaa isu soo bixeenaas iyo kulankeena inuu inoogu dambi dhaafo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala cirkana madar khayr qabo inaga siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kuwii naarta ka xoreeyay inaga dhigo mid barakale ilaahdo mid barakale ilaahdo mid barakale ilaa midaan danab lahayn ilaa midaan duufaan lahayn ilaahdo midaan dabayl lahayn ilaahdo midaan daad lahayn ilaahdo mid lagu reeyo ilaa mid koobaha biyeeya ilaa waddanka mid caamira ilaa meeshiisa qof kastaba iyo reer kastaba iyo degmo kastaba meeshiisa ilaahu ku sii ilaahdo meeshiisa ku sii ilaa bahaayinka soo waraabi ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu dunuubteena dhaafo dhammaanteen ba isugu keen dambi dhaafo ilaahay dunuubteena ha dhaafo kuwa waalidiinteena ha dhaafo miitaadkeena inta Allah u naxariisto ilaahay subxaanahu wa ta'aala halka aynu isku soo baxnay ilaahay dartii isugu soo baxnay fadhiga iyo baryada Allah inaga aqbalo اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم أغثنا غيثا مقيسا مريئا مريعا نافعا غير دار عاجلا غير آجل اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاندين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مقيسا هنيئا مريئا طبقا مجللا صحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم سقي الرحمة ولا سقي عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق ولي بلشدنا وينو باهانتاي gacanteena u baahantahay gacanta Allah bay u baahantahay inta xafiisyada joogta ayaa walaalayaal maanta xaqiiqada og in badan oo la dareenina way jiraan waxaan bulshada halkan timi ee degmada Burco ee garoonkan ku sugan maanta uu la wadaagaynaa waar bulshadeeni maanta wali weynoo baahantahay qof oonu hays dhiganin ilaahina waa inaga aqbalaya ducada oo cirka quruxdiisa waynu aragnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayno soo naxariisto oo mid degdeg ahayna siiyo oo mid dhamaanteena deeqahayna siiyo oo mid qof kastaba halkiisa ku gaadhayna siiyo Burco waxaynu ognahay walaalayaal inay u badan tahay biyo mareen dad badan oo dan yarana waxyeello u geysata marka daadadka xoog gale ama toga maraya ama magaalada maraya ama kooniyaasheeda maraya soo dhacaan biyahaas bulshada waxaan ku baraarujinayaa qof kasta inuu ka waantoobo meelaha biyo mareenka ka fogaado meelihii u baahan wax lagala qabto noo yimaado xafiisyada noo yimaado oo nala wadaaga dareenkiisa bulshadana taa waan ku baraarujinayaa waxaan ognahay dib aad u fara badan ayaa jirta oo abaara oo saddex roobaad aan roobina helin runtii xaqiiqdu waxa weeyaan inay maalmahan dambe ay ka sii kululaatay maalmihii gurmadka xoogga aan wadnay kaliishiina ay sii laabantay dadkii miyiga joogay iyo dadkii tuulooyinka ku noolaa intuba maanta ay aad u dhiban yihiin xoolihii ay jilicsan yihiin dadkiina ay jilicsan yihiin ilaahay inuu ka soo furto dhibtan aadkii aadka u weyn ee runtiina haysa ayaan ilaahay ka baryeynaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee qiimaha leh ee dhagaha furan ee cilaamkii madaxweyne ku-xigeenku cilaamiyay iyo wasiirka diinta iyo awqaafta aynu uga soo jawaabnay inagoo og dareenkeenna
iyo dhibtayna haysata darteed ilaahay waxaan ka baryayaa raxmaanka waxaan ka baryayaa raxiimka waxaan ka baryayaa inuu maanta inoo soo naxariisto guud ahaan reer Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ilaa gobolka Togdheer waxaa ka jirta abaar aad iyo aad u baahsan ilaa waxaa ka jirta biyo la'aan ilaa waxaa ka jira dhib badan baa runtii ka Shaafici Maxamed Ibraahim Saab TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber